كرد حبت هذا حبته لي وداي هذه وركض ويسوي adigu sheego inta sheego halkaasaan dhigayna anagu aad u taashe بشيء بأيو ila umadi waa tan قدوبي anaga sheegi adigu iska joog قريتا دواريغا أيوة استداركي ما adigu mushkilad mali وبدمنا تتكلم سنة حاجة واسكداي أنا والله حدا يا دار بيك فيش كذا بس هقولهم لا بالعكس بس هو قلدي مشروعه أنا قلت في شوي أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله halkan waa caynaba aanu joogno dhakhtarkii caynaba waxaanu ilaa xalay ilaa shalayto la soconay dawooyinka aanu dadka ugu gargaarayno aanu soo qaadnay anagoo xisbiga wadani anagoo soo kaxaynay dad professional dhakhtar ah oo waxa weeye caafimaad anagoo dhigaynay dawooyin yani dadka shubanka ku dhacay ee xanuunsanaya oo anwaac badan leh oo halkan yaala sidoo kale biyihii sidoo kale raashinkii sidoo kale waxa weeye duruufaha ay qabaan ka caawinaynay meelo badan aan runtii soo maray waxa nagala kulantay dhakhtarka caynaba in qoryana lagu qabto askarta taagan ay idin muuqata muuqaalka ka muuqata in qoryana lagu qabto waxa la dawladda tiri yaan la soo gelin iyo soo gelin waa sida iyagu sheegeen afkooda kala haayeen amar baana lagu siiyay inaan la dhigin askartiiba caynka tiri in hablihii shaqaalayntii xaliimay joogtay baa tiri muuqaalada soo duubana dadkoo dhami way arkayaan waxa muuqata dadkii oo yani عدلن أو حنون سنة أو شيفة أي دوادي أنو سيدني معاونين كها لودي دي أو لقى حيري وحنو دت كرير سومالي لان دت كرير سراري دو قبر كسرار دمان دت كسماء تعلو بندقينا إن يعني صفة أفضوبة أو عن صحهين وحوي اللوجو دي دت كي تشلع سنة أو عنقبتين تهي وأنو عمبارين إن دت كشلع سنة أو مدة شلع سنة عمباريو فعل كان إمكانك قريانا لقو قبنا وحلم ذي هي فعل كي وحوي محكمة كدعي reer wadani iyago maxkamadda jooga madaxdii wadani lagu waxyeelay qaar lagu qabqabtay qaar lagu xidhxidhay qaar waxa weeye lagu garaacay dhakhtarka ugu jiraan qaar hadda jeelka ugu jiraan waxaan leeyahay cid kasto amarka fulisay waa amar qaldan waxaanu dadka u bandhigaynaa dawladda wixii u soo jeeda ee danta caamka u soo jeeda ee danaynaya ummadda leenahay waa amar qaldan waa maamul qaldan waa sifo qaldan oo aan sharci ahayn in ummadda loo diido cadilan oo laga xayiro iyadoo markii hore laga cabanayay freedom of speech ama in dadku xorriyadooda hadlaan iyadoo markii labaad xisbiyada la immunity-ga leh waxa weeye sharafta leh yani madaxdoodii la xidhxidho oo la qabqabto in haddana maanta ay gaadho dadka masaakiinta ee xanuunsanaya ee boqolka qof ee jiifa dhakhtarka boqolaalka gaadhaya dhakhtarka jiifa in loo diido laga xayiro waa runtii waa ayaan darro aad u weyn aad baan u cambaaraynayna waxaan leenahay dinna dalka qori kuma qabsan kuma ogin annaga shalay madax ka ahayn madaxweynihii iyo dawladdii kumaanaan ogeyn sidaa haddaanu ahayn wax maanta la gaadhay haddaanu ahayn wax dadka buka loo tashaday haddaanu ahayn wax caynaba u khaasa waxa weeye kumaanaan ogeyn waxaanu leenahay waanu ka soo horjeednaa ummadda yaan la caburinin yaan la cambaaraynin ninkii wax ku taraya halkan kaalay haddaydaan u iman oo ummadda u iman oo ay taal ka dhigataan cid kalena yay u iman oo baktiisaan taa macnaheedu waxa weeye anna u iman maayo cid kalena yay u iman dadku ha baktiyaan hadday taa uga jeedadu tahay waa uga jeedo qaldan waxaanu leenahay aad bay u foolxun tahay dhacdadii tan ku xigtay oo barasaabka maanta joogay halka aniga qori laygu qabtay laga celiyay nasiib darro waxay amar uu isagu cumaamatay oo keligii ku koobnaa oo wasiirka dakhliga markaan la hadlay uu yiri ma ogi sidii baanan ku galay shirka
marka waxaan arkaa caynaba in group afduubay oo ku afduubay groupnimo magaca dawladana huwanaya ayaanu arkaa runtii eedaa waxaan u jeedinaynaa ciddii leh baan u jeedinaa ciddii ka bad qabtaa way ka bad qabtaa waxaan leenahay xarumaha caafimaadku siyaasad ma galaan halka olole uma soconno calama ma sidano uma naan inaan organize garayno xisbigayaga haddaanu doonayno inaan organize garayno tan laga dayn waayana waxay iman doontaa tuka fog aad iyo aad baad mahadsantihiin tabaruca dawada ku socod waxaan u tagay bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxaan wadnay tabaruca dawada waxaan soo marnay balweyn qorolugud iyo dhakhaatiir frontiera halkan anigu waan ku soo horeeyay waxaan u tagay guddidii abaaraha waxaan ku nidhi biyaha iyo daawadaasaan wadnaa lagala wareega ilaa 7 xubnood 5 xubnood baa soo kaxeeyey dhakhtarkii baan keenay markii aan dhakhtarkii keenay aan siidhi amar soo qaado badha saabkii iyo magaranaysaa iyo isuduwi waxay dhahaan waan ku qabsanayaa caamada inaan qabnay guddida abaaraha ku wareeji guddida abaarihi aan yidhi siyaha kala wareegano iyagu dhakhtarka ku wareejiyena dhakhtarkii way ka carareen dhakhtarkiiba soo gelina lagu waa ka carareen gaadhigii aan sindaa ku sindaa ayaan soo gelin isuduwi markaa uu tagay wuxuu yidhi inaan baan kugu ballaminayaa markii dambana waa abaabka wayga fur waay isagana meeshii wayma waay waxa weeye waa sifa khaldan dad buka oo shubana baan u gurmeen oo aanu u soo tabaruc u soo samaynay oo aan u soo socon oo aan u nimi oo aan si wixii aad tari kartaan u keena wana la ka qaban waay ma sifa sharciya sifa sharciya ma waa in la ka qabtaa rasaas baan la ku qabtay waana la handidi waxa weeye askartu waxay taliya qaybta amar ku haysanaa amar baan la siiyay ma siyaasaddan wada arrin calamaana sidan soo dhaweyn maana sameyn waxaan siin dadka walaaladiina ee xanuunsanaya la soo tiiraanyooda oo xanuunka la soo arka oo waxa ku tarkataan ku caawiyo oo dawada u geeya dawaa loo diid iminka dawada waxaan ku wareejinaa uqaashan ku wareejinaa waa halka taala aragtaan halkan waxa yaala dawo iyo biyo loogu tabarucay dadka jiifa isbitaalka Caynabo dadkaas oo shubmay oo jadeeca la tagtay shubanka waxa u dhintay oo gobolka Saraar gudihiisa ama isbitaalka ku dhintay dad gaariya 20 dadkaas marka qayladaan baa laga sameeyay gaalo iyo muslim xisbi iyo muxaafid iyo mucaarad hantiilayaasha jahliyeedaha cid walba dadka buka ee shuban ku dhacaya ee geeridooda badatay caawimay ka sugayeen maanta waxa la keenay saraakiil sarsare oo hoggaanka xisbiga wadani hogaaminayo ayaa soo bixiyay daawo dhul badan bay soo mariyeen isbitaalkii ugu weynaa 10 qof shubanka ugu dhimatay ayuu keenay daawo iyo biyo iyo raashin gurmadka dadka loo markii hore loogu baaqay ayuu ka mid ahaa cidda kale ee ka dambaysana waanu sugaynay dadkii bukay ee halkaa jiifay ee badidoodu u idlaatay shalay qaar baa saacad shubmay saacad hal saac markay shubmaysay saacadii labaad ka baxday gurmadkii loo keenay qod dadka noocaasa halkaa waxa isku hortaagay maamulkii gobolka Caynaba dhakhaatiirtii amar siiyay waxba la gelin meesha meel dadkaas dad loo gurmado ma habuyin ma hadda loo gurmado dadka buka ee 10 ku dhimanaya ee marba balaasayo dad loo gurmado ma waxba yaa loo geyn buu yiri badha saabkii gobolka iyo taliyihii ciidanka waxa leeyahay mujtamaca gobolka Saraaro waa aragtaan haddaa shubataan iyo haddaa bad qabtaanba ilmaamulkiina yiri dad loo gurmado ma waxba ha u geynina in kuwii idin siday rasaas lagu qabtay waa aragtaan dawladda sare hadday kula socotana dee inaanay muraad baydi kala hayn Soomaaliland ay xukuumadda hadda jirtaa waa aragtaan musharaxna waana idin sharaxan tahay haddana muraadidi kama leh waa aragtaan waxaan leenahay halkaa waa ta lagu wareejiyey waa la tiriyey ama ha ka gurtaan ama ha siiyaan cuqaashi baan ku wareejinay haddii ay dadkiisii u ogol yihiin cuqaashu ha siiso hadday u diidayaan cuqaashana ku diidaan wabillahi tawfiiq waxa magacayga la Maxamuud Ursame Geedi waxa weeye gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Saraar Hilbayare waa soo dhaweynaa gudoomiyaha xirsi iyo tiimkii hogaamiyaha xirsi iyo tiimka la socda aad baan u soo dhaweynaynaa waana salaaman yihiin tan hadalka waxaan u arkayaa anigu asxaab siyaasad politika ka dhaxeeyo asxaab politika ka dhaxeeyo ayuu baan anigu arkayaa haddii amarkaasi jiro inaan dawooyinka la keenin iyo biyaha dhakhtarka haddii uu jira amarkaasi waa amar khaldan baan qabaa sifa khaldan weeye haddaanu jirin
ee laga been abuurayo taliyaha qaybta iyo barasaabka iyo agaasimaha cusbitaalka haddii laga been abuurayo waa in loo hubsadaa kiiska haddii laakiin uu jiro arrin khaldan weeye taasaan u arkaa tan kale waanu soo dhawaynaynaa qolada noo timi waxaanaan leeyahay xamaasadna idinka laftiinnu xirsiyow wax badan baa lagu jiray waqti 12 bilood oo dhowdhow baa laga soo laacay oo jiilaala maanta nooga keen hore idinkoo wadaniya maanta noo timaadeen aniga hore idin ma arag haddii maantana aad qaylisaan looma baahna dawladdu intaaba 12 bilood iyada afaysay dadka 12 biloodba iyada gurmad iyo afhayn u waday waxa laga yaabaa dhowna tiraanta ka saarina waayo nin walba dhaliishiisa waa loo keenay loo sheegay annaga maanta nooga keen hore booyada biyana idinkamaan arag baad kalena idinkamaan arag maanta noo timaadeen oo dawasida oo biyasta way idin tixgelinaa maanta wax saan leeyahay inamadaadu baa leeyay ma kala jeclida iyaga iska kala jeclaysiiya yaa dawladda oo sanadka oo dhan shaqeynaysi 12 bilood shaqeynaysi maanta idil caaymayna anagu oo oran mayna dawlad ma aha dadkaan waxba ogolayn idil ma caanayn waxaan leenahay dawooyinka iyo biyana waan idinka qabanaynaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin xisbi mucaarada baa tihiin xisbiga mucaaradka dadka isaga hanta isaga ayaa hanta iikaadi dadka isaga hanta dee dadka hanta oo saa ku hanan lahaydeen yeelan anigu idin leeyahay talageliya intaasaan idin siinaya waxaanan leeyahay dawadan waanu qabanaynaa annaga aqwaashi gobolka ah xabadkiina inaan loo diidi karin soomaaliya garan agaasimaha cusbitaalku hadduu ima waayo cusbitaalka oo diida dadka in dawooyinka siiyo annaga qaybana noo siinay soomaaliya digtoor rawaay meena noo sheega